aad u soo wada xaadirteen baan ka mahad celinayaa maasha allah caawa halka waxaynu ku wadaagaynaa waa ganacsi aad u ballaadhan oo ilaahay idinkii noloshiina bedeli doona nolosha dad fara badan oo soomaaliyeedna hore u bedelay ayaynu caawa halkan aynu ku falanqayn doonaa insha allah aniga cusmaan ahaan businesskan amase ganacsiga waxaan bilaabay 2019 bishii labaad runtii sababta ugu weyn ee ganacsigan igu kaliftay waxay ahayd laba arrimood bay ahayd arrinta koowaad ee igu kaliftay waxay ahayd walow aan shaqayn jiray oo aan ahaa qof shaqaynaya haddana igumay filnayn dhaqaalahay soo gelaya marka income yar oo aad aan igu filnayn baan samayn jiray nolosheeda marka loo eego waxa aan xabaarsanahay iyo niyaddayda waxa ku jira iyo qalbigayga iyo waxaan doonayo aad buu weynaa waxaan ahaa dhalinyartii Yurub soo gashay 2000 iyo ma garanaysayay 13 soo gashay baan ahaa muddo ayaan bilaa sharci ku noqday marka ugu dambeyn sharci baan helay waxaan anigoo jooga ma garanaysayay Faransiiska anigoo jooga ayaan halka sharciga ka qaatay shaqaalaan noqday oo waxaan bilaabay ma garanaysaa shaqaan bilaabay shaqa markii aan bilaabay waxaan arkay runtii wixii markii aan qurbaha imanayay fikirkayga ka guuxay iyo wixii aan ku shaqaynay laba aad u kala fog bay ahaayeen marka waxaan isku dayay inaan helo fursad dheeriya oo aan noloshayda aan ku dabero ama meel kale oo dhaqaale ka sameeyo muddo igu qaadatay inaan helo ugu dambeyn anigoo maskaxdayda taasi ka dhex guuxayso ayaa waxa wiilaan walaalanahay oo aadan iskugu dhownahay oo wadankii ka yimiday ayaa fursadan ila wadaagay ama ila sheergareeyay kadibna runtii aniga kama labalabayn because maanta haddii aad haraadan tahay oo aad ooman tahay biyana lagu soo dhigo ma garanaysaa ma jirto sababaad uga fikirtaa waa inaad cabtown soo maa miyaad ka fikir adigoo haraadan maya marka waxa weeyaan aniga waqti dheer inaan ka fikiray iguma qaadan because waan u baahnaa baahi baa jirtay ma garanaysaa baahidayda ka weynid wax kastaba waxaan ma yahay wax saxa oo xalaal ah oo shaqaynaya oo waxaan ka samayn karo yes markaan jawaabtaan helay alxamdulillah ganacsigii waan bilaabay kadibna waxa weeyaan muddo kadib ilaahay wuxuu qadaray inaan shaqaalanimadii aan ka maarmo ilaahay wuxuu qadaray inaan qoyskayga aan si buuxda u taageeri karo kii dal jooga iyo kii dibadba jooga caruur dhan oo runtii aniga aan u weynaa inaan ma garanaysaa jaamacadahoogii noloshoodii macnaha jaamacada dibadda hadday noqoto maasha allah tabaaraka allah yacni waxaanan soo koobi karin nolosheeda isbeddel buuxa ayuu waxa weeyaan iyo qoyskaygaba ku sameeyey maasha allah tabaaraka allah in waddankan maanta aan deganahay Canada aan wax uga qabsada hadday noqoto in dalkii aan wax uga qabsada hadday noqoto riyooyin fara badan oo nolosheeda aan lahaa oo runtii waqti dheer igu qaadan lahaa ayaa ilaahay wuxuu qadaray muddada yar ee kooban ee ganacsigan aan ku jiro inuu ma garanaysaay aan companygani aan ka sameeyo waxaa sidoo kale ilaahay qadaray in aniga sababtiiyo go'aankii aan qaatay kumayaal qof oo Soomaaliyeedna ilaahay noloshooda ku bedelay marka caawa waxaan ku hayaa waxa weeyaan waa fursad adigana noloshaada bedeli doonto weeyaan laakiin su'aasha koobaad waxa weeye adigu walaal ma u baahan tahay sideedii oo kale ma tahay qof haraadan oo waxa weeyaan biyo u cabo oo kale u baahan biina caawa miiska aynu saarana ma tahay qof u baahan ma tahay okay waan u baahanahay inaan shaqaysto waan u baahanahay waxa weeyaan inaan noloshayda iyo waxa weeyaan aan kafaalo qaado oo mas'uuliyadayda maasha allah meel saaro oo aan isbeddel nololeed sameeyo bal soo qor ma u baahan tahay inaad ganacsi samayso ma u baahan tahay dhaqaale dheeriya oo ka maanta ku soo gala ka badan ha yaraado ama ha badnaado dhaqaale dheeri inaad samayso ma u baahan tahay micdaan u baahnayn bay nagu jirtaa yes soo qora marka insha allah haddii aad u baahan tahay yes soo qora waan u baahanahay soo qora maasha allah yes soo qora yes maasha allah yes maasha allah waynu u baahannahay ma jiro qof aan u baahnayn inuu dhaqaale diidaya waa qofka ma garanaysa ma jiro qof kasta u baahan haddaba walaalayaal maadaama aynu u baahannahay dhaqaale dheeri inaan samayno maanta duruufaha nolosha lagu jiro qof kasta u baahan waxaan doonayaa intaynaan warbixinta bilaaban bal hordhac yar inaynu qaadanno oo aynu isweydiino su'aalo yar insha allah ma qiimaysay heerkaaga nolosha mase u baahan tahay inaad isbeddel samayso inaad u baahan tahay weli ma isqiimaysay yaad ka sugaysaa inuu jaangooyo qaab nololeedkaaga iyo xalinta mushkilada ku haysta cid kalead ka sugaysaa maya marna ku fikirtay inaad noqon kartid ganacsade ama maalqabeen naftiisa
dadkiisa iyo dalkiisa wax ku soo kordhiya ma u malaynaysaa in la gaadhay xilligii aad bilaabi lahayd nolol cusub ka duwanta aad maanta ku jirto ma ogtahay in adduunku maanta u guuray duni ay wax waliba suurtagal yihiin duni ganacsi oo aad ma garanaysaa cusub oo faa'iido badan aad ku samayn kartaa adigoo gurigaaga jooga weliba ma ogtahay in moobilkaaga aad gacanta ku haysid ee aad 24 saacadood bay isticmaalaysid aad isaga dhexdiisa aad ku samayn karto ma garanaysaa dhaqaale riyooyinkaaga oo dhanna aad ku rumayn karto waa taleefankaaga keliyaad haysato weli ma ka fikirtay su-aashaasi okay waxaasoo dhan haddii aad ma garanaysaa su-aalahaasoo dhan aad jawaabahoogii saxdaada aad hayso fursaddan way kugu habboon tahay qofkii loo baahnaa ayaa tahay okay laakiin haddaanad su-aalahan oo dhan ana jawaabtoodii aanad hayn oo qof isqiimeeyey qof waxaan ka hadlaya aan dareemayn haddii aad tahay markaa kuguma habboono walaalo okay maasha allah tabaaraka allah walaalayaal caqabaadka jira maanta ee nolosheenna haysta maxaa ka mid a in badan oo inaga mida maanta waxay raadinayaan inay dhaqaale dheeriya helaan sideedii oo kale in badan oo inaga mid a waa dad ganacsiga jecel laakiin waxay ku bilaabaan ma haystaanoo xagga dhaqaalaha ayay cilladu ka haysaa in badan oo inaga mid a waxa weeyaan ma garanaysaa mustaqbalkoogu yacni security maaha in badan oo inaga mid a iyagoo 60 jira imisaad aragtay hooyooyin da-ah oo shaqaynaya oo nolol xamaal oo adag ka shaqaynaya imisaad aragtay aabbayaal yacni da-ah oo xilligay nasan lahaayeen maanta shaqaynayo dhabarku daalan yahay oo xamaalaya imisaad aragtay ma noloshaasaad doonaysaa haddaad maanta dhallinyar tahay inaad ku noolaato adiguna 60 sano kadib maanta intaad awood iyo quwad leedahay waad isbedeli kartaa waxbaad samayn kartaa laakiin fadhi waxba kuguma imanayaan walaalayaal insha allahu tacaala marka fursaddaynu caawa halkan kusoo bandhigayno waa mid xallinaysa baahiyooyinka amase mushkiladahaas aan soo sheegay insha allahu tacaala walaalayaal waxaynu marka hore ka hadli doonaa kombaniga taariikhdiisa kadibna waxaynu ka warrami doonaa kombanigan iyo waxa uu qabto kadibna waxaynu ka warrami doonaa sida adigu aad shaqadan u qaban karto iyo sida aad uga faa'iidaysa insha allahu tacaala waxaan doonayaa 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo oo waqtigaa ka mid a inaad halkan ku bixiso waayo wax u dhigma 100 saacadood u dhigma saacado meelo kale kaaga bixi lahaa ayuu u dhigmaa waqtiga halkan aad gelisa maa waqti aad luminaysa maaha saa ula soco insha allah hadduu khadku kaa yargo soo laabo insha allah waaya waxaynu markaa su-aasha ugu horrayseed u baahantay inaad ogaataa waxa weeye waa maxay ganacsigani kombanigani muxuu yahay kalsooni intee leeg ayaan ku qabi karaa walaalayaal kombanigan waxaynu ogaanaynaa markaa kombanigan goortii la asaasay waxaynu ogaanaynaa meesha laga leeyahay waxaynu ogaanaynaa xilligii la asaasay waxaynu ogaanaynaa sidoo kale siyaasadda guud ee kombaniga ayaynu ogaanaynaa meelaha ay xarumaha ku leedahay baad wax ka ogaan doontaa waddankeennii markaad joogto inay ka shaqaysayeen kale baad ogaan doontaa xaggee baa xarunteeda ku taallaa waad ogaanaysaa waddankeennii markaad joogto waxaad ogaan doontaa maxaa laga faa'iidaya shirkaddan yaase ka faa'iidaya maxay soo saartaa maxayse ka ganacsataa su-aalahaas oo dhan baynu ka jawaabaynaa kombaniga magaciisa waxaa la idhaha walaalayaal forever living product company waxaa la aasaasay 1978 waxaana laga leeyahay waddanka maraykanka waxaana aasaasay ninka inoo muuqda ee Regismond la idhaahdo siyaasadda guud ee kombanigu waxa weeye 2 qodob kow inay soo saarto alaab tayo leh oo tayadeedu ay aad iyo aad u sarreyso iyo inay ma garanaysaa dadka alaabta ka shaqaynaya ee wakiilada kombaniga ah iyaguna ay ku noolaadaan nolol caafimaad iyo hanti leh yacni inay dad dhaqaale badan sameynay noqdaan ayaa siyaasadda kombaniga ah waddankeennii imise xarumood bay adduunka ku leedahay 160 waddan bay xarumo ku leedahay kombanigu waddankeeniina wuu ka shaqeeyaa oo wuxuu xaruntiisa guud ku taallaa magaalada Hargeysa shirkadana runtii muddadii ay waddankeena joogtay waa shirkad ay dad badan shaqa abuur fara badan u samaysay Kenya sidoo kale waxaan ku leenahay xarun Kampala xaruma ku leenahay 160 waddan ayuu kombanigu xaruma ku leeyahay maasha allah marka qof kastaana waa shirkadu ka shaqaysan karo waana shirkad aamina sumcad weyn adduunka ku leh sababtoo waxa weeyaan waa shirkad intaasoo waddan ay sharciyeeyeen weeyaan oo sharciyad ka haysata weey walaalayaal qodobka labaad baynu u gudbaynaa oo ah inaad wax ka ogaato wax soo saarka kombaniga wax soo saarka kombaniga inaad ka ogaataa waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo haddii aad alaabta keliya ku qanacdo ama wax soo saarkeena keliya aad ku qanacdo shirkadda dee maasha allah waad ka mid noqonaysaa sababta alaabtii waad ku qanacso ma
waaba sababta ugu weyn aad ugu soo biiri kartaba weeyaan alaabta kombaniga ood ku qanacdo marka bal insha allahu tacaala alaabtani may tahay alaab laga shaqaysan karo oo ganacsi laga samayn karo su-aashaasaynu insha allah iyadana ka jawaabi doonaa wax soo saarka shirkadda 3 qaybood ayuu kombaniga alaabtiisu u qaybsantaa qaybta koobaad waxaa loo yaqaanaa qaybta maaraynta miisaanka waana suuq aad u ballaadhan oo balaayiin dollar ku kacaya kombanigu wuxuu soo saaraa sidoo kale fiitamiino iyo cunno caawiyayaal caafimaadka u wanaagsan ama qaybta caafimaadka loo yaqaano oo iyaduna baahideedu ay aad u badan tahay waana qaybta caafimaadka aad u ballaadhan weyn qaybta saddexaad ee kombanigu soo saaro waa qaybta qurxinta iyo cosmeticska qaybaha maaraynta miisaanka waxaa ka mid a walaalayaal 3 qaybood qaybta miisaanka lagu kordhiyo iyo qaybta miisaanka lagu dhimo iyo qaybta caloosha keliya tusaale qaybta miisaanka lagu dhimo programka C9 la yidhaahdo oo productyada hadda iniga muuqda sawirka ayaa ma garanaysaayay uu soo saaraa waxaa ka mid a cabirkii aad isticmaali lahayd fibertii sidoo kale waxaa ka mid a brotiinkii oo isagana booskii cuntada kuu gelaya aloveeradeennii productyo fara badan weeyaan marka qofkii raba inuu caafimaadkiisa ilaaliyo lacag kastood haysta haddii maanta caafimaadkaaga aad ku ilaalin weydo macnaha ay kuu samaynayso male xanuuno badan baa laga qaadaa miisaankaagu ciyaar maaha waa inaad miisaankaaga kaantaroosho oo miisaan caafimaad leh waa inaad leedahay okay healthy weight waxaa la yidhaahdo overweight inaad noqotona lama rabo in miisaankaaga hoos u dhacana lama rabo inuu kor u dhacana lama rabo waa inay isleeg yihiin miisaankaaga iyo dhararkaagu walaalayaal sidoo kale qaybtan waa qaybta loo isticmaalo iyadana miisaanka lagu kordhiyo oo malab brotiinkii uu ka mid yahay fitamiinka kale ka mid yahay maasha allah qaybtana waa qaybta dadka doonaya caloosha keliya inay iska jaraan ayaa loogu talagalay dad badan baa raba inay caloosha iska jaraan soo maa qaybta caafimaadka waxaa ka mid a qaybta cilladaha caloosha sida ka qaada screenshot waxyaabahan oo dhan waxyaabaha ay xalinayaan weeye babaasiirtoo kale gastrigoo kale calool istaaga macaanta dhiikarka kolestaroolka hurdo la'aanta nafaqa darrada cilladaha taranka ragga iyo dumarka xoojinta raganimada nafaqaynta carruurta lafa xanuunka muruqyo xanuunka ilka xanuunka suuska cudurrada maqaarka finanka wejiga haaraha waxaasoo dhan oo waxyaabay noo yaalla mililka ama gudguduudka wejiga waxa loo yaqaano dildilaaca jirka calaamadaha daadu ay keento waxaasoo dhan waa maxay wax caafimaadkaaga la xidhiidha weeyaan iyadoo haddana skiinkii iyo maqaarkii ay tahay waa wax caafimaadka la xidhiidha timaha daadanaya waa wax nafaqada iyo caafimaadkaaga la xidhiidha cidiyaha madmadowga iskuisyada ku dhaca iyo faraha calaamadaha indhaha hoostooda ku yimaada maasha allah tabaaraka allah madax xanuunka iyo qanjirka tayroodhka dhammaanba fiitamiino kaa caawinaya oo kaa saborgaraynayaan haynaa su-aashaan raba inaan ku weydiiyo waxa weeyaan imise qof ayaad garanaysaa oo intaan iminka soo calaamadeeyey ama aan soo qeexnay oo kale u baahan imisaad garanaysaa u baahan hadda intaa screenka kaaga muuqata screenka waad ujeedaa soo maa how many people ayaynu garanaynaa haartii haddaynu soo qaadano skin careki haddaynu soo qaadano caafimaadkii guud haddaynu soo qaadano tarankii haddaynu soo qaadano gaaskii haddaynu soo qaadano soomaalidiina guri miyaa laga waaya walaalayaal u baahan maya weeyaan guri u baahan lagama waayayo walaalayaal kombanigeennu wuxuu soo saaraa sidoo kale qaybta loo yaqaano qaybta qurxinta waxaana ka mid a kiriimada daashiga caadiga kiriimada qoraxda kiriimada haaraha biya kiriimada finanka biya saliidda dildilaaca jirka biisa sadka aroosyada loogu talagalay ama dadka aroosyada samaysanaya oo dee maasha allah isticmaali karaan sadka shaambada sadka ka hortaga daada qaybta daada lagaga hortagayo daada lagama hortagi karo laakiin waa isqurxin kartaa 4 shay baa laysla isticmaalaa saabuuni waxaan oo dhan waxa weeyaan mid walba wax shaq uu qabanaya iskama yaalla meesha mid walba shaqa ayuu qabanaya waxaa ka mid aan haynaa qaybtii timaha shaambadii conditionkii saabuunaadkii oo kala duwan afakaadhadii iyo tu'a timaha ilaa iyo cidiyaha meel kasta aad u isticmaalaysa inta u dhaxaysa libistii deodoronadii hand washkii liquid soapkii waxyaabo fara badan baan haynaa qaybta qurxinta walaalayaal maasha allah tabaaraka allah kombanigu soo kale wuxuu soo saaraa qaybta loo yaqaano b productiga oo malabkii iyo waxyaabahaasoo dhan ka mid yihiin si fiican ma u fahantay ma garanaysa wax soo saarkeenna kombanigeenna alaabta uu kombanigu soo saaro si wanaagsan ma u fahantay haddii aad si wanaagsan u fahantay si aan qodobka kale qaabka dhaqaalo looga samaynayo aan ugu gudubno waxaad soo qortaa 9 soo qor
sagaal soo qor marka 99 soo qor si wanaagsan haddaad labada qodob aad u fahamtay kombanigina waad fahamtay alaabta uu kombanigu soo saarayana waad fahamtay waaya maasha allah 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 hambalyo 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 maasha allah waaya haddaba maadaama aan isla fahanay walaalayaal kombaniga iyo wax soo saarkiisii oo aynu isla fahanay sidoo kale kombaniga iyo mataqaanaayay wax soo saarkiisa waxaynu doonaynaa haddana inaynu isla eegno biidni illaahi tacaala sidee baynu dhaqaalo uga samayn karnaa kombaniga walaalayaal kombaniga waxaad dhaqaalo uga samayn kartaa horta inaad u noqoto wakiil inaad noqoto sidaa awgeed waxaa loo yaqaanaa sponsor yacni qof wakiil ah unba ama distributor kombanigana alaabta isagaa inoo soo saaraya aniga tiimka yaga isagaa noo soo saara maasha allah kombanigu isagaa qof kastoo shirkadda ka mid ah alaabta u soo saara annaguna waxaan noqonnay dad alaabtiisa wakiila ka ah oo kombaniga yacni macaamiishii gaadhsiiya oo suuq geeya sidoo kale kombanigu system kalena uu leeyahay oo dhaqaalo looga sameeyo markaa wakiil baad u noqon kartaa kombaniga ka mid a marka maasha allah sidee baad dhaqaalo uga samaynaysaa waxaa jira 3 qaab oo dhaqaalo looga sameeyo kombaniga qaabka koobaad waxaa loo yaqaanaa inaad alaabta kombaniga ku iibiso online iyo offline tusaale nairobi baad maanta degan tahay reer nairobi oo dhan baad ka iibin kartaa sidoo kale waxaad alaabta ka iibin kartaa dad jooga maraykanka adigoo jooga nairobi amase jabuuti jooga ayaad adduunka meel kasta ku iibin kartaa adigoo u iibinaya qaab online ah marka alaabta kombaniga waxaad ka samayn doontaa faa'iido dhan 5% ilaa 48% kolbana darajada aad kombaniga kaga jirto ayay walaalayaal ku xidhan tahay kombaniga sidoo kale waxaad dhaqaale uga samayn doontaa inaad bishii ka samayso lacag commissiona amase bonusa inaad ka hesho oo iyadana laga helo inaad wakiilo kala samayso ama tiim aad dhisto waxaa kaloo kombaniga dhaqaale looga sameeyaa abaalmarino uu bixiye ayaa jira oo sanadlaa oo loo yaqaano forifatu drive ee safarro bilaasha iyo inaad sheer shirkadda ugu dambeyn inaad ku yeelato haddaba qaabka koowaad markaynu soo qaadanno alaabtan kala duwan ee baahideedu aadka u badan tahay ayaad noqonaysaa qof ka faa'iidaysta qaabka labaad markaynu soo qaadanno waxaad ku soo xidhi doontaa kombaniga tiim ama walaalo aad isla shaqaysaan ama koox aad wada shaqaysaan oo iyaguna alaabta kombaniga iibiya qaabka saddexaadna waa abaalmarinaha waaweyn ee dadka qaarkii ay ku guulaysteen markaysaan $1 milyan ka badan adigana waad gaari kartaa waayo waa lagaa soo horreeyey laakiin lagaama laha maasha allah tabaaraka allah maasha allah labada qaybood ee ganacsigeena ugu waaweyn aad ku shaqaynayso ee dhaqaale aad uga samaynayso ee ganacsigaaga ku dhisan yahay waa productiga inaad isticmaasho isla markaana aad sii iibiso qaab online iyo qaab offline labadaba waa laba fursadood weeyaan online ku iibi hadduu online kugu adkaado offline baad haysataa offline waxa laga wadaa bilaad internet inaad alaabta iibin karto adoon internet haysan dadka kula jooga xaafadiina jaarkiina magaaladaad degan tahay inaad wax ka iibin karto online kuna waayo anoo jooga Canada inaad alaabta iga iibin karto labadaba waad uga shaqayn kartaa dhaqaalaad uga samaynaysaa sidoo kale inaad walaalo kale kombaniga aad ku soo xidho oo aad tiim dhisto iyadana waa fursad kale oo lacag bilaad ku samaynayso haddaba qaybta koowaad markaynu soo qaadano si aad shirkadda dhaqaale fiican aad u samayso maxaa lagaa doonayaa alaabta inaad kala barato waa lagaa doonayaa waxaa lagaa doonayaa sidoo kale alaab way badan tahay alaabtan iminka soo sheegnay soo ma aad bay u badan tahay qayb inaad xulataa la doonayaa aad isleedahay qaybtaasaan socodsiin karaa okay qayb kasta maaha inaad xoogga saarto qayb baa kugu filan inaad samaysato macaamiil joogtaa 20 qof ilaa 30 qof ayaa lagaa rabaa inaad gaadhsiiso asxaabtaada iyo qoyskaaga because iyaga alaabtii u baahan baa lagaa rabaa inaad alaabtii ku xayeysiiso baraha bulshada iyo goobaha la iskugu yimaadaa lagaa rabaa si aad dhaqaale u samayso oo faa'iidaad u samayso waxaa lagaa rabaa inaad samaysato jadwal shaqo maalmeed joogta ah oonu kaa caawin doono insha allahu tacaala haddaba walaalayaal kombanigu maadaama uu wadano fara badan uu ka shaqaynayo waxaa jira wax loo yaqaano CC-gu waa halbeega guud ee kombanigeenna ee iibkaaga lagu cabirayo
kolba ganacsigaagu intuu taagan yahay cc ayay u dhigantaa oo lagu cabiraa cc-gani marka waa inta alaabeed iibiseen weeyaan okay bisha intaad iibiseen sanadka intaad iibiseen wixii oo dhan cc baa loo bedelayaa haddaba cc-gu iminka haddaynu soo qaadano archi balaaska oo faa'iidadiisu mucjiso ay tahay dhiikarku u fiican yahay meelo badan buu u fiican yahay xididada wadnu wanaajiyaa waxaasoo dhan cc-giis waa intaa yar hoos ku qoran weeyaan waa imisa waa 0.341 kan haddii aad arkayso waxa weeyaan 0.148 waa serum waa saliid alpha effect la yidhaahdo oo anti agina kani waa aloveeradeeni waa dacarteeni weeyaan iyadana cc-geega waa intaa kana waa maxay dhibcaha yar aad arkaysa ayaa cc loo yaqaanaa dhibcahani markaa cc dhaqaale ahaan lacag bay u dhigmaan oo xabadda archi balaaska ah cc ahaan waa intan laakiin dollar ahaan jabuuti ahaan lacagteeda ama faran ahaan kenya shil intay ku noqonayso waddankaad joogto intay ku noqonayso ayay ku xidhan tahay haddaba markaad cusub tahay halka cc wuxuu u dhigmaa waddankii markaad joogto wuxuu u dhigmaa $273 buu u dhigmaa waa markaad cusub tahay hadhow inta kaaga jabi doonaa halka cc alaabi jabuuti markaad joogtana waa 48,500 wey kenya markaad joogtana waa 34,500 walaalayaal si wanaagsan ay la socotaan cc-ga ma fahanteen waa muhiim cc-ga ma fahanteen cc-ga ma fahanteen saddex soo qora cc waa lacag cc haddaad maqasho waa lacagtaada u dhiganta marka halka cc markaad cusub tahay waddankii wuxuu u dhigmaa 273 maxamed amiin farxiya good job okay waddanada yurub oo kale waa ilaa 300 oo euro meelahaas u dhigmaa yurub oo kalena marka waddankaad joogto ayuu ku xidhan yahay xamdi cc-gu waa lacag wax kale maa walaalo okay waa lacagtaada u dhiganta weeyaan oo dhibcaha yaroo lacag loo bedelayo sababta lacagtan loo sameeyena wax kale ma aha waa si ay isku fahmaan dadka kombaniga ka shaqaynaya si ay isku fahmaan ayaa lacagtani walaalayaal loo sameeyey oo qofka jabuuti joogaa maanta markuu igu idhaahdo waxa weeyaan 20 cc baan iibiyey bishani waa fahmaya laakiin markuu igu idhaahdo lacagtiisa jabuuti markuu igu sheegay ma fahmayo waa lacagaan isku fahanno weeyaan okay laakiin lacagtaad wax walba ku adeeganayso ee alaabta markaad dalbanaysa aad ku adeeganaysaa waa lacagta waddankaaga lacagtaada caadigaad isticmaalaysaa waayahay haddaba walaalayaal si aad ganacsigan guul weyn uga gaadho waxaa lagaa rabaa inaad alaabta si fiican u kala barato tusaale ahaan qaybahan oo kale hadda waxa weeyaan waa qaybihii gaaska oo kale dad badan ayaa u baahan qiimaha lagu gadayo wax walba inaad ogaato ayaa lagaa doonayaa fiitamiinka ayra hadda inii muuqda waa fiitamiinka caruurta weyn waxaana ku jira 120 xabaa ku jira fahmadu u furaya maskaxdoodu u fiican yahay dhammaanba nafaqadii ilmaha uu u baahnaa ayuu ka helayaa waana delicious wax macaan oo caruurtu jecel yihiin multi vitamin wey maasha allah tabaaraka allah caruurta 2 sano wixii ka weyn ayaana ma garanaysaa isticmaalaya waana maraykan wax lagu sameeyey weeyaan ma wax China iyo meelo kale lagu sameeyey maaha marka imisa hooyooyinaad garanaysaa keligii haddaad ka alaabtaad ka ganacsanayso ee ka shaqaysanayso ee xoogga saaraysaad ka dhigan kartaa kanoo kale waa mid ka mid ah alaabaha aadka loo isticmaalo meel kasta oo nabura ayaa la mariyaa imisaad dad nabur haya la kulantaa cisbitaal kastoo tegto intaasoo qof oo nabur haya tegaysaa soo maad arkaysaa okay waxa weeyaan markaa hadday wax ku yar xagtaan haddaad wejiga finan ku leedahay haddii ma garanaysaa babaasiir nabur ay noqotay oo waxa weeyaan meeshii nabur ay noqotay wixii oo dhan waa la marinayaa way u wanaagsan tahay sidoo kale moisturize bay siisaayo waxa weeyaan cidhbaha way u fiican tahay safanka way u fiican tahay maasha allah way moisturize bay ka dhigaysaa maasha allah waa mid ka mid ah alaabta loogu jeceliya kombanigeena weeyaan wejiga way nafaqaysaa nutrition bay siisaa dacar baana laga sameeyey boomaatadan waa dacartii oo cream ah weeyaan bal qiyaas adigu dacartii oo cream ahaan u isticmaalayso maasha allah tabaaraka allah 85% waa dacar weeyaan qaybta labaad qaybtaasi markaa waa alaabtaasi waxaad ka samaynaysaa faa'iido maalinle ah adigoo alaabtaa kala duwan ee kombaniga ka shaqaysanaya dhinacii labaad walaalayaal waa dhinaca tiimka maxaa faa'iido kuugu jira waa su'aal isweydiinaysa soo ma inaan walaalo kale kombaniga ku soo xidho maxaa faa'iideen ka helaya waxaad xaqiijinaysaa 3 faa'iido oo horumar weyn aad ku samaynaysa ganacsigaaga kow waxaad helaysaa 30% markaad team dhisto 30% ayaad helaysaa commission maasha allah tabaaraka allah
waxaad ganacsigaaga ku soo dari kartaa sponsorna ka noqon kartaa asxaabtaadii dad badan baa jira fursadan u baahan marka walaalo kale ayaad ma garanaysaa wax weeyaan kombanigii aad ku soo marti qaadi kartaa maasha allah sidoo kale adduunka oo dhan ayaad iyadana tiim aad ka dhisi kartaa maasha allah tabaaraka allah faa'iidada ay leedahay inaad tiim dhisto maxaa ka mid a marka inaad walaalo kale kombaniga ku soo xidho maxaa faa'iido ah ee ay leedahay waa qodob u baahan inaad si wanaagsan u fahanto waxay kaala qayb qaadanaysaa kobcinta ganacsigaaga waayo cc-ga ama iibka ay tiimkaagu sameeyaan waa lagu xisaabinayaa si aad darajada u gaadho oo leveliskaad kombaniga u beddesho waxaad deg deg u gaadhaysaa darajooyinkaad iigsanaysid iyo riyooyinkaaga oo dhan maasha allah marka darajooyinka xagga dambe aynu ku arki doonaa waxaad bil walba helaysaa dhaqaale amase commission kaaga imaan doona dhanka tiimkaaga ayaad helaysaa waxaad tiimkaaga gaadhsiin kartaa tirada aad doontid oo tiro cayiman oo lagaa rabo male waxaad tiimka ka soo qori kartaa waddan kasta oo ay shirkaddu xarun ku leedahay furaha ballaadhinta ganacsigaagu waa hadba sida aad u dhisto koox taya leh oo kula shaqaysa ma arkaysaa ganacsigaaga ma rabtaa in waddano badan gaadho aniga cusmaana ilaa 60 waddan ayaan bil walba dhaqaale ka sameeya waddanada joogta dabcan dhaqaale waan ka sameeya bil kasta mana joogo kenya weligii ma tegin dhaqaalaan ka sameeya masha allah dhaqaale aad u badan weliba oo reero dhan ay biilan karaan haddii aan biil ay noqoto waddanada qaarkood okay waddankeeni dhaqaalo aad maasha allah ya alxamdulilah ya ayaa ka sameeya maraykan iyo kanada maraykan weligii ma tegin dhaqaalo badan baa haddana macnaha waxa weeyaan adduunka oo dhan ayaa kuu furan oo aad dhaqaalo uga samaynaysa inaad fahanteen baa rajaynaya faa'iidooyinka ay kuu leedahay inaad tiim dhisto iyo faa'iidooyinka ay kuu leedahay inaad ma garanaysaa alaabta kombaniga aad iibiso inaad fahanteen ayaa rajaynaya labadaa qodobna maasha allah labadaa qodob waa labada qodob ee dhaqaale aad uga samaynayso kombaniga si wanaagsan ma u fahanti soo qor 4 haddaad fahanti marka 4 ama 1 soo qor 1 soo qor haddaad si wanaagsan u fahantay labada qaab ee kombaniga dhaqaale looga samaynayo iyo waxa faa'iido kuugu jira su-aashanu taas ayaadan ka jawaabaynay okay faa'iidada kuugu jirta maasha allah waan hubinayaa inaad si wanaagsan u fahanteen iyan kale thank you aad baad u mahadsantihiin haddaba walaalayaal qaabkee loo bilaabayaa ganacsigan maasha allah waxaynu ka soo hadalnay kombanigani muxuu yahay waxaynu ka soo hadalnay wax soo saarka kombanigani muxuu soo saaraa waxaa kaloo aynu ka soo warannay ama se aynu ka soo sheekaynay qaabka shirkadda dhaqaale looga samaynayo ee aad shirkaddan ula falgeli karto sidee baad u bilaabi kartaa marka diyaar ma u tahay horta waxaan hadda ka soo warramayey ee maanta dhan aan ka soo sheekaynayay ma ku xiise geliyey diyaar ta hadda inaad fursad noocaas mawta aad ka shaqayso maskaxdaadu diyaar ma u tahay inaadoo gurigaaga jooga adduunka dhan aad ka shaqayso ganacsi aan dhaqaale badan kaaga baanayn productiga intaa leeg ee baaxad intaa leeg inaad ka shaqayso are you ready that taa diyaar ma u tahay diyaar ma u tahay maasha allah diyaar soo qor marka let's get to start saad u bilaabi lahayd baynu markaa gudagalaynaa diyaar soo qor diyaar soo qor maasha allah amina maasha allah congratulation hambalyo maasha allah saxardiid maasha allah maxamed amiin cali maasha allah hambalyo diyaar ayaan maasha allah diyaar ma u tahay I'm so happy intaasoo qof oo soomaaliyeed ina caawa waxa weeyaan ay diyaar u yihiin inay fursaddan ka faa'iidaystaan aad baan runtii aan mabsuud uga ahay haddaba walaalayaal waxaad ku bilaabi kartaa sidan soo socota ugu horrayn diiwaangelin baa lagu samayn doonaa diiwaangelintana waxaa lagaa rabaa kow ID card inaad leedahay ama sharci inaad leedahay haddaanan lahayna dhib male waa lagu diiwaangelin laakiin waad soo samaysan doontaa mustaqbalka 2 emailkaagaa lagaa rabaa 3 waxaa lagaa rabaa magacaagoo 3 4 waxaa lagaa rabaa taariikhda aad dhalatay 5 waxaa lagaa rabaa adreeska amase magaalada aad degan tahay intaa marka lagaa helo shirkadda waad iska diiwaangelin kartaa xubin baad noqon kartaa kadibna maxaad faa'iidaysaa waxaad faa'iidi doontaa markaa inaad ma garanaysaa kadib waxaa lagaa rabaa inaad darajada koowaad ee kombaniga aad gaadho oo aad iibkaagii ugu horreeyey aad samayso ileen ganacsi baynu ka sheekaynaynaaye ganacsina sidiisa waa inaad waxna iibsato siina iibiso waxaa jira markaa marka lagu diiwaangeliyo waxaad heli doontaa qiimo dhimis 5% ah ayaad heli
ID number baad heli shirkadda kuu gaara ayaad heli account baa lagu siin maasha allah maadaama aad markaa xubin buuxda aad noqotay waxaa lagaa rabaa markaa inaad leefalkii koowaad aad u gudubto haddii aad leefalka koowaad aad u gudubtana waxaad heli doontaa faa'iidooyin badan kow alaabtii way kuu jabaysaa oo alaabtii markay jabto dee faa'iidadaadi way badanaysaa laba tiim baad markaa soo dhisi kartaa markaad leefalka koowaad gaadho saddex waxaa lagu ogolaanayaa waddankaaga maayo waddanada kalea kuu furmaya oo lagu ogolaanaya inaad dhaqaale ka samaysa bishii saddexdaa faa'iido si aad u hesho waa inaad shuruudda ugu horreysa ee lagu gaadhay aad buuxiso markaad isdiiwaangeliso ayaanad buuxin kartaa waxaa lagu gaadhaa markaa bogos xidhan oo $410 oo waxa weeyaan darajadii koowaad ku siinaya kenya bogoskaasi waa 51,450 waa 51,51 weeyaan okay jabuuti markaad joogto waa ilaa 74 ilaa 73 oo jabuuti farana waddanada aad joogto ayayna ku xidhan tahay coachkaaga ama wakiilkaaga caawa halkan ku soo geliyey baa kuu sheegi doona packageka ugu horeeya waddankaad joogto inta uu ka yahay waayahay marka 410 waa dadka jooga waddankii weeyaan ee hargeysa xarunteena hargeysa ka adeeganaya qaabka labaad ee ganacsiga aad u bilaabi kartaa waxa weeye aad haysataa inaad alaab 2 cc oo $545 aad qaadato oo aad doordoorato adigu adaa doordooranaya bogoskan shirkaddu iyadaa kuu diyaarisay laakiin kan adiga ayaa doordooranaya oo odhanaya tusaale malabka intaasaan ka rabaa kariimaadka intaasaan ka rabaa qurxinta intaa wixii dee uu kambanigu hayay baad doordooranaysaa kaas markaa aad gaadho ama iibkaagu gaadho 545 ayaad leefalka u gudbi doontaa insha allahu tacaala qaabka saddexaad ee loogu talagalay dadka ma garanaysa ardayda ah dadka waxa weeyaan maanta waxbaba aan hayn ayaa loogu talagalay qaabkani markaa waxa weeye waa $100 wixii ugu yar qofku inuu ku adeegto oo muddo 2 bilood bishan haddaan ku jirno iyo bisha dambe ee aan la dadaalno oo kadibna aan soo gaadhsiino ganacsigaaga 545 okay markaa 545 waa yaryaraysan kartaa qasab ma inaad hal mar ku bilowdo 410 laakiin waa baakad isku xidhan iyada lama furfuri karo hal mar baana darajada ku gaadhaysaa ka ugu badan ee dadku ay ku gaadhaana waa kaa laakiin kan choice-kan labaad ee 545 oo waxaad doordooranaysa weeyaan walaalayaal maasha allah tabaaraka allah walaalayaal markaa leefalkaad gaadho maxaa markaa lagaa rabaa alaabtii baad isticmaali doontaa macaamiil badan baad yeelanaysaa tiimkaagii baad dhisanaysaa ganacsigaagii baa ballaadhanaya dhaqaale bilaah ayaana ma garanaysaa waxa weeyaan kuu bilaabmi doona insha allahu tacaala kadibna waxaanu kula cagtaa saari doontaa dariiqa guusha ama waddada guusha ee kombanigeenna oo loo yaqaano halkan ayuu ka bilaabmaa dariiqa guusha ee kombanigeennu waana maalintaad isdiiwaangeliso weeyaan walaalayaal okay waana maxay maalintaad isdiiwaangeliso ayuu bilaabmaya oo waa 5% markaad haysato weeyaan kadibna 35% ayaad imanaysaa markaad package-ka qaadato waxaanad noqonaysaa waxa loo yaqaano wow maasha allah business owner baad noqonaysaa FBO baa loo soo gaabiyaa xuquuqdan anigu company ku leeyahay oo kalaad ku yeelanaysaa waxaanad ku gaadhaysaa bogoska yar ugu horeeya kadibna adiga iyo iibkaaga ayaad kordhi doontaayo shaqadii baynu qabanaynaa macaamiishaadii baa kor u soo kici doonta tiimkaagii baynu dhisaynaa kadibna leefalkan labaad ayaynu isla qorshaynaynaa leefalkanna sababtaad u gaadhaysaa maxay tahay waa si aad u hesho iyadana qiimo dhimis intii hore ka ballaadhan oo 38% alaabtii baa kuu jabaysa daawadilkaa kuu jabaysa saabuunihii cadaraantii qaybtii timaha qurxintii gurigaaga wuxuu u baahnaa caafimaadkii yaa salaam maasha allah miisa wixii oo dhan baa waxa weeyaan jumlad baa lagugu siinaya 38% baad ku heli doontaa kadibna waxa weeyaan adiga kooxdaadiiba sii yara dadaali doona waxaad u gudbi 43% waana 75 dhibcood muddo 2 bilood haddaad ku gaadhaan kadibna manager baad iman maasha allah manager haddaad timaado waa meesha ugu qiimaha badan leh qiimo dhimista ugu dambaysa ee kombaniga lagu helo weyn waana 8% weeyaan walaalayaal maasha allah tabaaraka allah marka manager mar haddaad gaadho oo leefalka afraad darajada afraad timaado wax kale lagaama rabo waa inaad tiimkaaga caawiso aniga ganacsigan alxamdulilah hantidaan ka sameeyey waxaan ku sameeyey walaalo fara badan oo soo caawiyey
maasha allah adigana haddaad doonaysa inaad hantiilo noqoto sidaydoo kale oo kumbanigan aad hanti fiican ka samayso waxa aad ka samayn kartaa waxa weeyaan inaad walaalo badan aad caawiso caafimaad ahaan aad caawiso qurxintoodii iyo noloshoodii aad wax badan ka beddesho sidoo kale inaad dhaqaal ahaan aad caawiso oo walaalo badan aad kumbanigiidaad uga faa'iidaysa intaad uga faa'iidayn karto oo shaqada ma keligaa baad qabanaysaa walaalo laga yaabaa ma garanaysaa waxa weeyaan istrabilla shaqada ma keligaa baad qabanaysaa cabsi ku yarayso cabsi ma jirto because annagaa kula joogna annagaa kula shaqaynayna dadka cusub warbixinta annagaa kuu siinayna waad soo casuumi doontaa keliya okay sidoo kale waxa weeyaan alaabta annagaa ku kala barayna shaqadii waa lagula qabanaya laakiin ganacsigaada iska leh ya salaam alxamdulillah soma wow maasha allah tabaarak allah haddaba walaalayaal marka aad gaadho manager ee darajadii hadda afraad aad gaadho qiimo dhimistii inay kuu korodho halkii ugu dambaysay aad gaadhay ka sokow waxaad xaq u yeelan kartaa ood u gudbi doontaa abaalmarinaha waaweyn ee kumbaniga waxaana ka mid ah abaalmarinta gaadhiga koowaad waa dhaqaale uu bishii kugu siinayo muddo 36 bilooda $400 okay waa lacag ilaa $14,000 sidoo kale gaadhiga labaad waa $600 bishii lagu siinayo oo $22,000 noqonaysa $800 oo iyaduna noqonaysa $28,000 dhaqaalaha gaadhiga la dhaqo qorshaha gaadhiga la dhaqo qorshahaasaa kuu diyaara waxa kaloo kuu diyaara 2 jeer oo sanadkii oo dalxiisa oo bilaasha waxa kaloo kuu diyaara inaad abaalmarinaha waaweyn ee kumbanigeenna aad qayb ka mida noqoto oo jeeg aad hesho oo kumbanigeennu uu reward ku siiyo ayaa kuu diyaara maasha allah tabaarak allah maasha allah waxaan rajaynayaa inaad ma garanaysaa diyaar u tahay inaad isbeddel samayso oo aad ka faa'iidaysato oo waxa weeyaan ma garanaysaa ka mid noqoto walaalaha fursaddan caawa ka faa'iidaysanaya inaad noqotaan rajaynaya insha allahu tacaala imise qof baa diyaar bal gacanta taaga maasha allah isaa diyaar marka waxaan rabaa mid ka mid a hableena soomaaliyeed inaan soo dhoweeyo oo runtii ma garanaysaaye maanayjarad ilaah baa weyn aad u weynaa oo waxa weeyaan ma garanaysaaye walaaladan noloshooda bedeshay iyaduna nolosheeda ku bedeshay horumar runtii kheyral caadiya ka gaadhay bishan soo socotana u socota dalxiiska ka dhacaya xeebaha talyaaniga maasha allah tabaaraka allah oo hooyo soomaaliyeeda ayaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan oo tigidhkii u go'an yahay oo kumbanigu wax walba ka bixinayo iyada iyo waxa weeyaan weliba qof kale maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah maasha allah marka waxa weeyaan 2 tigidh oo free ah ayuu ku siinayaa kumbanigu maaha tigidh keliya okay hoteelada adduunka ku qaalisan markab weyn baa lagu dalxiisaya bisha September waa hooyo Soomaaliyeed oo waxa weeyaan guulaa ka gaadhay yaa diyaar marka inuu isbeddel sameeyo oo dadkaas oo kale uu ka mid noqdo gacanta taaga gacan badan ma arkay meesha gacanta laga taagayo reaction ka taabo then raise hand maasha allah raise hand marka waayahay maasha allah congratulation hambalyo toddobayna marayna hambalyo waayahay hambalyo soo dhawaada walaalayaal hambalyo waxaan rajaynayaa walaalo manager sacdiye inaad maqlayso soo dhawo walaashay qaali khayr allah ku siiyo waqtigaaga qiimaha leh waan kaaga mahad celinaynaa insha allah waxay rajaynaya walaaleen in warbixintii si wanaagsan u qaateen diiwaangelintu waa free kadibna waxa weeyaan ganacsigaagii baad bilaabaysaa haddii aad awooddo packageka ugu horreeyaad ku bilaabi haddii kale 2 bilood baad iska yaraysan no problem muhiimaddu waa go'aan lacag la'aan hadday ku hayso meeshaad lacagta ka samayn lahayd wey bal ka warran adigoo ooman ama haraadan oo waxa weeyaan waa tii aan tusaalaha inagu soo qaati weeyaan qofka lacag markaan u haysan waa qof dee lacag inuu sameeyo u baahan soo maaha dhaqaale inuu sameeyo u baahan yahay ka warran marka caawa haddii aad hesho dariiqii aad dhaqaale ku samayn lahayd dad ka warran oo weliba waa qof yacni xanuunsanaya oo kale dawadiina loo hayo laakiin ma garanaysaa odhanaya yacni cudurdaar deris noo cudurdaar walaalayaal cudurdaar ma jiro because cid kaaga baahi badanba ma jirtaba aniga cid iga baahi badan ma jirto markaan ganacsigan bilaabayay sababtaa waxa weeyaan waan u baahnaa allah hayow $100 ma ka samayn kartaa baan isiri haa $100 ma samayn kartaa tijaabi allahu aclam markaan tijaabiye ilaahay muxuu qadaray 2020 ilaa sanad kasta dalxiiskiisa waa ku guulaystaa sheeg hadday tahay inaan shirkadda sheeg ku yeesho hadday tahay maasha allah tabaaraka allah inaan intaasoo qof oo soomaaliyeed oo walaashii sacdiye ka mid tahay
noloshooda aan bedelo oo hadda dalxiiska iyaduna waxa weeyaan maasha allah hadda ku qoran markaa sacdiya la soo dhaweeya sacdiya soo dhow walaalo miyidka iska qaad manager aad baan u dhawahay adiga dhammaan walaalaha ku jira zoomka waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله